kulan wacan oo wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada wararka doornimo ee Hegan Media qodobada aan idinkuga haynana waxa kamid ah liiska odayaasha soo xulaya xildhibaanada cusub ee Jubbaland oo lagu dhawaaqay shil sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay duleedka Warshiiq dowladda waddanka Turkiga oo cambaaraysay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gaaray magaalada Baydhabo dowladda federaalka Soomaaliya oo faahfaahisay waxa dib u dhigay doorashooyinka Galmudug caalamkana waxaan idinkuga haynaa 33 qof ayaa ku geeriyootay birac ku dhacday tuulo ku taala dalka Hindiya qodobadaas iyo qodobo kale waxaad ku maqli doontaan warkeena doornimo warka waxa soo jeedinaya anoo shooka aadan guraya oo diyaar garooba isagoo oo faahfaahsan دارا خرطا وحيلاتي دقدقي عالم كدد ويسوما guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa caawa shaaciyay liiska odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Jubbaland guddiga doorashooyinka ayaa ku dhawaaqay in odayaashan ka kooban 135 oday kuwaas oo dhawaan soo xuli doona xildhibaanada cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland sidoo kale odayaasha ayaa waxa laga soo kala xulay beelaha Soomaaliyeed ee deegaanada Jubbaland wararka laga helay gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan deegaanka hoostaga degmada Warshiiq ayaa waxa ay sheegayaan in saaka halkaas uu ku rogmaday gaari kuwa xamuulka qaada ah gaarigaas rogmaday ayaa waxa la sheegay in uu ahaa nooca Soomaalidu u taqaano TM-ka kaas oo ka soo ambabaxay magaalada Muqdisho waxaana uu gadoomay xilli uu marayay tuulada lagu magacaabo Gumero oo hoostagta degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in shilkaasi uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadkii gaariga saarnaa waxaana halkaasi ku dhintay hal ruux sidoo kalena 6 qof ayaa ku dhaawacmay goobta uu gaarigu ku rogmaday ayaa waxa gaaray dadka deegaanka kuwaas oo gurmad degdeg ah u sameeyay dadkii halkaasi ku waxyeeloobay waxaana dadka dhaawacmay loo soo qaaday dhinaca magaalada Muqdisho si loogu soo daaweeyo si kastaba gaariga rogmaday ayaa waxa uu waday alaab iyo bagaash noocyada kala duwan ah kaasoo u rarnaa dad ganacsato isla markaana waxa uu ku sii jeeday deegaanka Masagaawe oo ka tirsan gobolka Galgaduud wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga waxa ay sheegtay in ay si kulul u cambaareynayso weerarkii isqarxinta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho kaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyeed hadal qoraal ah oo ay wasaaradda soo saartay waxay ku sheegtay in ay ka xun yihiin khasaaraha ka dhashay qaraxaasi oo ay ku geeriyoodeen ugu yaraan 10 qof kuna dhaawacmeen dhowr kale waxaan naxariista u rajaynayaa kuwii naftooda ku waayay qaraxaasi iyo in ay si degdeg u bogsadaan kuwii ku dhaawacmay ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga dhinaca kale dowladda Turkiga waxa ay sheegtay in ay tacsiis saaxiibtinimo iyo mid walaaltinimo u dirayso dowladda federaalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxa goor dhow gaaray wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo ka ambabaxay magaalada Muqdisho waftigu ay qayb ka yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa garoonka diyaaradaha Shaati Gaduud ee magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ujeedka waftiga ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ay maanta u tageen magaalada Baydhabo ayaa waxa lagu sheegay in magaalada Baydhabo ay ka furi doonaan shir looga hadlayo arrimaha gargaarka isla markaana ay ka qayb galayaan wafuud kala duwan sidoo kale waftiga ayaa inta ay ku sugan yihiin waxa ay kulamo kala duwan la qaadan doonaan madax ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyaga oo kala hadli doona arrimo dhowr ah iminkana Galmudug 4 bishan July 2019 ayaa qorshuhu ahaa sida ay horeyba u shaacisay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya in la qabto doorashooyinka hoggaanka maamulka Galmudug hase yeeshee ay dib u dhacday waxaana xukuumadda Soomaaliya ay faahfaahin ka bixisay waxa sababay dib u dhaca doorashada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sheegay in muddo bil ah ay dowladda Soomaaliya ku mashquulsan tahay xalinta khilaafaadka ka dhex jira bulshada Galmudug si loo dhiso Galmudug loo dhan yahay waxa uu sheegay wasiir Sabriye
Hindiya isagoo oo la hadlayay idaacadda BBC-da laanta afka Soomaaliga in haatan ay meel wanaagsan marayso qorshaha ay dawladda federaalku ka wado deegaanada Galmudug isla markaana ay rajeynayaan in ay guul ku soo dhamaadaan. Hadaladii wasiirka arrimaha gudahana waxaa ka mid ah dibudhaca waxaa keenay muddo bilaha hadda waxaa laga shaqaynayay dadka in la isku xiro laga bixiyo waxyaabo badan oo meesha ku jira si hore loogu socon karo iyadii waqtigaas qaadatay runtina dhibaatada jirtay oo ah khilaafaad iyo waqtigii oo dhammaaday ayaa dowladda federaalka go'aansatay in arrinkaas wax laga qabto cabsi laga qabo in dhibaato weyn ay ka timaado haddii Galmudug ay soo aysan maamul ay iyagu wada leeyihiin marka waxaa la diyaarinayay dadka iyo arrimaha ay u baahan tahay in hore loo socdo intaasaan la diyaarinayay iyagana ilaa uu sheegay dadkii xaray marayaan aan rajaynaynaa waqtigan ilaa iyo markay ugu baabato arrimaha ka dhamaan insha Allah. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa muddo bil ah waxa uu ku sugan yahay deegaanada Galmudug isagoo halkaasi ka wada arrimo la xiriira dhisidda Galmudug cusub hase yeeshee beelaha qaar ay dhaliilsan yihiin sida uu wax uga wado deegaanada Galmudug. caalamkana waxaa ugu waaweyn 33 qof ayaa ku geeriyootay biriq ka dhacday tuulo ku taala dalka Hindiya. Sargaal ka tirsan hay'adda samafalka ee goobaha ay ka dhaceen masiibooyinka ayaa sheegay in dadkaasi ay ku geeriyoodeen roobab biriq watay oo ka da'ay gobolka Uttar Pradesh ee waqooyiga dalka Hindiya. Sargaalkaasi waxa uu tilmaamay in biriqdaasi ay ku geeriyoodeen 33 qof halka 13 kalena ay ku dhaawacmeen iyada oo 20 gurina ay ku burbureen roobabka duufaanta watay. Roobabka xooggan iyo biriqaha ayaana la sheegay in uu gobolkaasi ka da'ay xilli ay dadka beeraleyda ahi ka shaqaynayeen beerahooda. Sargaal ka tirsan booliis ayaa sheegay in 7 qof ay ku geeriyootay hal tuulo oo kaliya xilli ay ka shaqaynayeen beer lagu abuuro dalagga bariiska. Dadka ku geeriyooday tuuladaasi waxaa ka mid ahaa haweeney iyo ilmo yar. Dhinaca kale wasiirka gobolkaas waxa uu sheegay in qoysaska ay dadku kaga geeriyoodeen masiibooyinkaasi la siin doono lacag taageero ah oo dhan 400 oo kun oo lacagta wadanka Hindiya una dhiganta $6,000. intaasi ayaan daawadayaal ku soo afmeerayaa qodobadii ugu waaweynaa ee caalamka iyo Soomaalida aan idinkaga hayay. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. haddii aad doonayso wararkan iyo warar kaleba inaad hesho mar walba janaalkan subscribe saar sidoo kale gambareelka furo asxaabtaadana la wadaag. tan iyo kulankeena kan xiga waa Shuuka Aadan Guray oo idin leh isma dhaafno.